daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey waxay muujinayaan in dadka dhallinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sannadkii 1990kii ahaayeen 29 milyan halka sannadkii 2017 ay kor ugu kacday 36 milyan waa dhallinyarada ay da'doodu tahay ama ka yar tahay 19 sano dadka dhallinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 24 oo ah da'da ay qaramada midoobey u aqoonsan tahay dhallinyarada ee tahriibaya waxay 1990kii ahaayeen 22 milyan iyo 400 kun sannadkii 2017kana waxay tiradaas kor ugu kacday 28 milyan waddamada ugu badan ee dhallinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira Soomaaliya waxyaabaha haddaba ugu badan ee dhallinyaradani uga cararayaan waddamadooda waxa ugu waaweyn colaadaha shaqola'aanta iyo faqriga Soomaaliya haddii aan gaar u eegno dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhallinyaro haddii ay yihiin ciidamada dawladda iyo maleeshiyada al-shabaab intaba tusaale ahaan daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobey waxaa lagu sheegay in shaqola'aanta da'da u dhaxaysa 14 sano ilaa 29 sano ay tahay boqolkiiba 67 Soomaaliya taasi oo ka dhigan heerka shaqola'aaneed ee ugu sarraysa dunida marka ay noqoto da'daasi sidaasi darteed dhallinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya Soomaaliya sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqola'aantu hayso waxaa kaloo ay dhallinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada waxaan haddaba barnaamijka galka baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani'aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhallinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada Soomaalida aafadaasi oo ah cudurrada dhimirka jinsi ahaan marka laga hadlayo ragga ayaa u badan da'da u badanna waa 17 jirka ilaa 35 jirka da'daasi u badan yihiin cabdiraxmaan cali cawaale oo loo yaqaano Dr. Xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda Soomaaliya xarumihiisu waxay ku yaalaan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ay ugu horeeyaan colaadii dagaaladii barakicii shaqola'aantii isku awood sheegashadii intaba ragga ayaa u badan waxaa soo raacaya draagiskii qaadka ayaa ugu horeeyo oo ay ku wada siman yihiin runtii waxaa kaloo soo raaca xashiishadii Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah waxa ugu sii badan 18 ilaa 20 sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay genetics bay noqon kartaa oo family-ga iyo haddii tusaalahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen parental boqolkiiba haddii hooyadu qabto 20 hadduu aabbuhu qabo 30 boqolkiiba 50 ayuu kordhayaa genetics buu noqon karaa waxa kale oo sii xumaynaya waa xilliga ay da'du ay ku bartaan balwadaha ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaan oo qofkii xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa waxay raadinaysaa dhaqankiisii bay raadinaysaa marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada si khatarta ah sida schizophrenia iyo bipolarka waa laba maarilaha iyo kan isku dardarsamay isla hadlayayo wax kaloo ku hadlayayo hadallo iyo codad uu jawaabayaa oo aynan maqlayn nolol ku jira marka waxa siyaadinaya xilligaas iyo adduunyada markii la qiimeeyay oo badan oo da'daas iyo xanuunadan ay xoog ugu badan yihiin Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo arooriyeen xarumaha Dr. Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin da'da u dhaxaysa 18 jirka ilaa 25 jirku waa mustaqbalkii dhammaan qaranka waa dadkii waxbarashada ku jiray waa dadkii shaqada laga sugay mustaqbalka dhammaan ku imaanay marka arrimahaas kale markaad aad hoos u fiirisid naxdin baa ku qabanaysa ragayna u badan tahay waa run rag waxaan u maleynayaa mas'uuliyadda saaran draagiska badan ku jira dagaal ku jira maantaas oo tension ku dhex jira 18 ilaa 25 maxay ugu bateen baa la isleeyahay da'daas waa da'dii dagaalka ku jirtay waa da'dii hadday wax baratayna mustaqbalka sugayso mustaqbalkeedii weysay shaqo weysay marka da'daas waa da'da vulnerability macnaha waa u nugul yihiin cudurrada dhimirka sida cudurrada kale
ugu nugeen laakiin cudurrada dhimirka aad iyo aad ugu nugeen oo stresska badan oo jira saameyn buu ku yeelan. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qaba nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda. waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faadumo Cabdi Macow waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah. iyada oo ka shaqaysa magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay'adda WHO. waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 sano ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqaysaa cisbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dawladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka. dagaaladii sokeeyay dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan. marka la leeyahay dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo sidoo qofku dhibku u gaadho wax yar sharax. okay, dhibka kow wuxuu noqonayaa dagaalo marka dagaal ka jiro, dagaal sokeeye ha ahaado ama shisheeye ha ahaado, dhaqaale ahaan dalkaas aad buu hoos u dhacayaa dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. qofka xabadahan iyo waxaan yeerayay oo dagaaladii sokeeye ahaana depression ka qaadaa maskaxiya. wuu isla hadlaa qofki markuu u waayo wixii uu wax ku gato ama wax uu ku samaysto. fikirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas, depressionka tago marka ay problemada dhinacaas baa ka imaanaya. okay, marka 4 sano imise qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwo la jiifiyo oo la daweeyo ka bacdina baxa iyo kuwa outpatientiga bukaan socodka ah, haddaa ii kala saarta ama isku darto imise guud ahaan soo martaad dhihi karta? sanad walba outpatientka keliya waxaan arki jirnay ilaa 700-800 camal. sanad inpatientkana gooni yahay, marka ilaa 2500 waa aragnay oo 4 sano. Dr. Faadumo Cabdi Macow waxay ii sheegtay in mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee walaaca uu ka imanayo ay ka mid tahay in xanuunka dhimirka uu ku dhaco carruur da'yar oo da'doodu tahay 8 sano ama 9 sano. sababta uu da'daas ugu dhacana waxay u aanaynaysaa qaadka. in cudurrada dhimirku ay ku dhacaan carruurta waxaa kaloo qayb weyn ku leh dagaalada oo ay ku waayaan waalidkood ama dadka ay jecel yihiin. ilmaha yaryar waxay bilaabaan 9 jir, jaadka 8 jir arkaysa caleemaha ka guranayo ilaa 75 jir arkaysa. carruurta bal si gaara uga hadal, maxaa ilmaha da'daas la-eg maxaa ku keeni kara kulata? marka hore waxay arkaan dadka waaweyn cunaya, iyagana waxay isleeyihin dadkan waaweyn waxay cunaya waxba faa'iide. marka dambena addicted ku noqonayaan oo korkooda ayaa u baranaya u raboonaya mar walba. dareenkaasi lamid ah waxaa qaba Dr. Maxamed Maxamuud Fujay. carruurta waa ku dhacaya carruur hooyadoodii lagu hor kufsaday, lagu hor dilay, agoontoomay, ma ka hadli karo wallahi. carruurta waa faham gaaray u baahan tahay iyo si gaara in cilmi baaris loogu sameeyo u baahan tahay. laakiin way jiraan, ma badan yihiin? waa jiraan carruurta, waa jiraan kuwan koolada cabahaya suma so kuwan derbijiifka maaha, so kuwan garaabada aruurinaya maaha. waa runta aad iyo aad bay u saameynaysaa carruurta, aad iyo aaday u saameynaysaa. nasiib darrada jirtaana waxa weeye barnaamij ayaga ku wajahan oo in wax looga qabtaa meeluu ka jira ma jiro. marka waa garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa arrinkaas, inay daraagiska ugu bataan oo daraag addictive badan ay noqdaan oo meelaha gobolkaad ku arkaysid ayagoo ama koolii cabahaya ama dhacdhacaya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka. qofka waaye qofkii uu jeclaa ama lagu hordilo ama dagaal ku waaye ama qarax uu ku dhinto, isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale? waxaa la yidhaahdaa xanuunada waxa u dhow oo halis u ah oo u nuglaada waxay kaga iman kartaa genetics ahaan, oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dheecaanadiisa hawlahaasi u diyaarka ah in ay u nugul yihiin inay degdeg u naxaan. waxaa kaloo kaga iman karta arrimaha bulshada, qofku jecel yahay haddii uu waayo haddii uu qarax uu ka hor dhaco ama ay dhibaato ka hor dhacdana waxaaba laga qaadayaaba xanuunka ugu weyn oo ah PTSD. wixii inuu xasuusto waxaa hadhow kasoo bixi doonto inuu qofkii naxnaxo, inuuna qofkii noloshiisii iyo xirfadiisii una raadin karaynin ayaa hadda sare kusoo baxaysa weliya.
sidee lagu ogaadaa qofkaas? waxaa laga wareysanayaa calaamadahan uu qofku ka cabanayo. tusaale ahaan haddii uu ku dhaco xanuunka depressionka ama afka soomaaliga lagu yidhaahdo murugada ama buufiska, haddii ku dhaco waxay ugu waaweyn 8 calaamadood oo muddo 4 kamid a ama 2 kamid a oo waaweyn haddii lagu arko waxa xanuunkiiba ay ku cadaanayo oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan uu qabo. tusaale ahaan haddii hurdalaan ku dhacdo, saaxiibadii uu tegi jiro uu joojiyo, shaqadii uu tegayay uu joojiyo, cuntadii uu ka go-o, waxaasoo dhan haddii ay ku dhacaan oo uu naxnaxayo, aamusayo, waxaasoo dhan waxay ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadihii depressionka ama niyadjabka. marka marxaladaa halkeeba uga gudbaata ku xigta xanuunka ku xiga waake? waxa uu uga sii gudbayaa haddii 2 toddobaad ama muddo bil ah xanuunkii laga daweyn waayo oo uu waayo qof ka dhegeysta ama qof uu sheegto oo ay la bayraan. tusaale ahaan la idhaahdo qofkan jin baa hayaa, sixir baa hayaa, il baa haysa, waana xanuun iska jira oo kaga imanaya qofka jeclaa uu waayey ama xiriir jecel oo ka go-ay, ma shaqo uu waayey, waxay ka iman kartaa uba hordilay, qarax ku hordhacay, waalidkiisii waayey, mustaqbalkiisii oo ugu adkeysan kari waayey inuu sii wado, waayey cid caawisa. waxaasoo dhan waxay ku keenayaan inuu xanuunkii kusii siyaado. haddii laakiin uu la kulmo qof dakhtara ama qof dhegeysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo ka dhegeysta, marka qofka xanuunkiisa iyo calaamadiisa laga dhegeysto oo qofkii social oo kale uu la kulmo oo qofkii dhakhtarkii loo gudbiyo psychiatrigi loo gudbiyo wuu caawin karaa. marxaladda ugu dambaysa waa maxay ee la dhihi karo qofka waa laga quusta ama xaaladiisu aad bay u xuntahay? marxaladda ugu dambaysa waxa uu tegayaa, tusaale ahaan wiil baa dhalinyaro ah, waa 18 jir, waalidkiisii oo kale ayuu waayey, dad caawisa ayuu waayey. wuxuu isku dayayaa inuu balwado barto. balwadahaas iyo xanuunkaas iyo shaqala-aantaas iyo xanuunkii oo aan la garan oo ignorance ay ka yihiin maca bulshadii way ku siyaaraysaa. marka dambe wuxuu sameynayaa inuu isdilkaambiyo, qaarkood uu severe depression gaadhaan oo ay isdilaan ama ay ku beeraan dadka dhibaateeya ee nolosha ka dhacay. wada Cabdulaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda. waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan. maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini'aadanka shakhsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoobaan oo qofkii waxaa ku dhacayo in fikirkiisii uu bedelmo. waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo. waxaa jiro cudurro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kala keenin. waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil, kufsi, daac, wax kasta oo naftiisa caadi u saameynayo uu la kulmo oo maskaxiyan ugu dhaco. waxaa la dhahaa cudurkaas post traumatic stress disorder, PTSD. erey bixin ahaan Soomaali uma haysano, laakiinse erey bixinta aan haysano aan hadda intaan Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafay aan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofku waxaa ku dhaco dhaawacyada qarsoon. waa dhaawac qarsoon oo maskaxiyan u saameynayo. dhaawacaas marka muxuu keenayaa? wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin, qof niyad jab mar walba haysto, qof mararka qaarkood argagax ku nool. sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu la soo kacayo oo uu cabsanayo ama wixii maalintii uu arkayay oo kale u saameynayso. sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay Soomaalida hebel uu xanaaq badan yahay oo farta gaarto marka la leeyahay oo kale. qofku wuxuu noqonayaa qof si degdeg u xanaaqayo oo caradiisa dhowdahay. midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano Soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shakhsiyad ama heer bulshaha ahaato. waxyaabaha la yidhaahdo qofka performance iyo productivity-ga lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aad u yaraatay. tusaale siday u saameysay qaraxyada dhacaya wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo ka yimid dagaalka raadkaas dhibaatooyinka kale ka yimid si u saameeyay wax soo saarka. waxaad adiga aragtay dadkaad la sheekaysatay tusaalayaal isoo qaad. hadda qaraxyada ka socda Muqdisho maalin walba ka dhaco annaga dhex joogna. aniga 14 October 3 beri oo kamid ah baan meesha qaraxa taagnaa oo aan ka shaqaynayo. anoo qofka la raadin oo dadka la
tusaalihiisa aana kusoo qaadan wax soo saarkaygii bay saamayso oo waxa ay ku saamayso waxay tahay shaqadii aan qabanayay xilligaas guddoomiyaan ahaa shaqadii aan qabanayay qaabkii aan rabo uma aana qabanaynin qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan ama se wuxuu isku arkayaa hurdo ama se wuxuu isku arkayaa niyadjab ayuu isku arkayaa marka wax soo saarka qaabkaas u saameynaysaa laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii muxuu ahaaye maalin walba uu ku jiro ayay maskaxiyan u saameynaysaa waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan raba inaan waddan ka qabto waxaa kamid ah ciidamada checkpointyada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay og yihiin in saacadda soo socoto wax ku dhacaayo ay ku fahansanayso dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha muxuu ahaaye mararka qaarkood dhici karta inay u sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay muxuu ahaaye argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan waa dhalinyaro dagaal ku dhashay kusoo koray weligoodna aan helin daryeel dhibir amase daryeel caafimaad oo faadumo sheekh cali jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan horta dhibaatooyin fara badan aa jiro waxna waa laga qaban karaa aniga waxaan 5 sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Maandhe Burco oo aan muujinay dad badan ay la shaqeynaa keligay ma ahayn waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsana in loo shaqeeyo ayadoo weliba lacag badan ayna kaa galin siday noqon kartaa taas waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro marka aniga Faadumo ahaan iyo dadkii ila shaqeynaya waxaan miisaan ka saarnay dadka guryahooda inaan ugu tagno home visit oo ahayd central waxa ugu muhiimsan shaqadayna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahayo oo 7 sano geed ku xirnay aan ugu tagnay Burco banaankeeda wiig walbaan u tagaynay marka dambe silsiladii waa laga furay marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan silsilada xumaan ma aha silsilada dadka waxay u sameynayaan jacayl haddii kale dadkii way ka cararayaan ninkii waalmay wuu cararaa sooma noqonayo ama dadow dilaa ama gabaroo xoogaa gabar hadduu xoogo diyaa laga rabaa dad hadduu dilo diyaa laga rabaa dadkiina waxba ma haystaan marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha aad dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxaystee Soomaalida iyo hay'adaha kale si arrintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqato inaan indho badan ku soo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani uu noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya aniga 5 sano aan ka soo shaqeeyay Burco waxay i tustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashano haddaan Soomaali nahay oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keenaa oo daawo noo keenaa aan annaga isku tashano dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco ha noqoto Beledweyne ha noqoto Baydhabo meel walba sanadkii 1 bil ka soo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalkii loo taro oo daawo la geeyo oo dadkii masaakiinta ah cunto la siiyo aniga waxaan hubaa inaan shaqo xoog la qaban karno aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris week ka hor waxaan joogay Oslo aan la shiray jaaliyadda Oslo oo shir aad iyo aad u ballaaran oo si fiican loo qabtay oo layga ballan qaaday mushaar sanad shaqaalaha sanad inaan helayno
bishaan dhammaadkeeda april dhammaadkeeda waxaan u socdaa london sidoo kale inaan la shiro oo aan lacag aruuriso marka aniga waxaan aada u jeclaan lahaa ilaa 5-6 sano mushaarkeeda shaqaalaha beledweyne inaan meel dhigno markii shaqaalaha mushaarkooda oo meel yaallo markaas ayaan usoo jeesan karaa tababar iyo training shaqaalaha. dhegaystayaal waxaa naga xusuusin ah in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka galka baarista ee kan xiga qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka gaar ahaan hooyooyinka umusha ah.